السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قصة عجيبة ودحمرتي آبان حريص بدن إيحاس كيسا sidoo kale uu kula dardaarmayo wiilkiisa madaxweynihii hore dalka Hindiya Dr. Abdul Kalam ayaa waxa uu ka sheekay qiso cajiib oo dhaxmartay hooyadiis iyo aabiis iyo dardaaran oo xilligaasi aabiis u jeediyay waagii aan yaraa hooyadii ayaa cunto noo karin jirtay habeen gaar ah ayay casho u sameysay miiska soo saartay aabe waxa ahayd saxan maraq iyo rooti aad u gubtay waxaan sugayay inaan ogaado waxa uu aabahay ka yiraahdo arintaasi laakiin aabe wuu cunay rootigii wuxuuna i weydiiyey siduu ahaa iskuulkaygii ma xasuusto waxaan u sheegay habeenka balse waxaan xasuustaa hooyo aabe ka raali gelinaysa rootiga gubtay marna ma ilaabo waxa uu ku yiri gacalis waan jecelahay rootiga gubtay habeenka intaan aabe dhunkaday ayaan weydiiyey inuu jecel yahay rootiga gubtay in kale gacmihiisa ayuu inta igu soo qabtay ugu yiri hooyada maanta oo dhan ayay si adag u shaqaynaysay aad ayaynu u daalan tahay rootiga gubtay cidna ma wax yeeleeyo laakiin erayada aadka u daran ee naxariis la'aanta ayaa waxyeelo geysta wiilkaygiiow nolosha waxaa ka buuxa waxyaabo aan dhammaystirnayn anigu maahi qofka ugu wanaagsan wax kastana ma aqaan waxbaan hilmaamaa mararka qaar sida qof kasta oo kale waxa uu waayuhu i baray waa in la aqbalo qof kasta cilladihiisa lana doorto in loo dabaaldego lana dhiirigeliyo xiriirka noloshu way gaaban tahay in aad hurdada ka toosto adigoo qoomamaynaya jeclow dadka kula dhaqma si wanaagsan u naxariiso oo cafi dadka kula dhaqma sida xun ha ku degdegin inaad qof dhaleecayso sababtoo ah ma sameeyo waxa aad samayso uma fikiro sidaad u fikirto waxaa jirta xilli adiguba aadan garanayn waxaad hadda taqaan aabbaan ayaana habdhaqankiisa waxaa ka muuqda sida naxariista iyo jacaylka mar waliba looga baahan yahay ragga inay u sameeyaan haweenkooda waxaana inta badan ragga Soomaaliyeed caado ka dhigtaan inaysan u naxariisan xaasaskooda qaladaadka mararka qaarkood ka dhacana ay canaan ugu bedelaan taasoo niyad ku abuuraysa xaasaska waxaana hooyooyinka Soomaaliyeed mar waliba waqti geliyaan sidii u qancin lahaayeen raggooda iyo sidoo kale caruurtooda waxay maalin walba jikada ugu jiraan sidii raashin macaan ugu karin lahaayeen raggooda waxaana mararka qaarkood dhacda in sidii aad rabtay ay noqon weyso waxaana markaasi muhiim ah oo laga rabaa inaadan ka xumaan balse aad u mahad celiso xaaskaaga maadaama dadaal badan ay samaysay sheekadan waxay idin socodsiinaya anigoo ah Gacal Ayman